السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan idin rajeynayaa dhammaantiin inaad faraxsan tihiin. casharkan kooban ee miradhada kooban qaadan doona insha Allah waxaan ku sharxi doonaa balaaniga ka shaqsi ahaan iyo inta Telegram channelkayga ku xidhan setup-yadan u diray bal hadda sida u dhaqaaqeen iyo sidaan uga faa'iideysanay sidaan u arkayay sidaan u taxliiliyay bal hadda intaasaan ku sharxi doonaa. marka suuqan isaga ah halkaas ayaan sal uga dirnay actually waad aragtaan in sabib bay hoos noola dhaqaaqday waxay noola dhaqaaqday ku qabto calaamad kaliya ablaysa halkaa 258 ku dhawaad 260 bib haddaan ahaynba 260 ka bib haddaba aan sharaxno bal sidii aan ku qabanay markii ugu horeysay. Allahumma salli ala Muhammad. anigu waxaan suuqa soo diray isagoo halkan maraya ayaan setup ka soo diray oo maxaan sugayay in real supply zone-kayga lagu laabto si aan suuqa down ugu soo raaco. sidii baa dhacday waan sugaynay intaas oo dhan annaga iyo inta setup-kayga qaadatayba waan sugaynay markii halkaa real supply zone-kayga lagu laabtay ayaa trade-ku active noo noqday oo halkaasaan kasoo galnay 260-kaygii bibna waan ka qabanay wax ka yar 4 saacadood. marka insha Allah taala waxaan markii hore soo sawirnay key level-lada waa ku muhiim ah key level-lada aysan ma ogaan karaysid trade-ku meesha uu ka soo daadan doono amba active ka noqon doono. liquidity zone-kii sidoo kale waan soo sawirnay fake breakout-kii trade line-ka 10 frames-ka waaweyn baad ka arkaysaan ka soo sawirnay 1 hour-kan joognaa 4 hour-ka iyo 1 day-ga haddaad tagto waad arkaysaa trade line-ka waa ku bilaabmay ku dhamaanay. waxaan sameynay insha Allah taala halkaas ayaan suuqa ka soo down trade garaynay wayna la soo daadatay TB1 kayagu halkaas oo ahaa TB2 guna halka TB1 ka ardayda badankooda ku xidhanayeen laakiin anigu waan la socday ilaa TB2 ga trade-ka horta si aanay wuxuu muran u gelin waxaan ku lahaa mar walba 0.23 ga fibkaaga markay marayso TB1 ka ku xidho laakiin anigu waxaan la socday ilaa TB2 260 bib oo red lacagta waan ka haystay. lacagtaas sidaas u dhacday halkaa markii maraysayna waan soo diray sidaan idin sheegay waxaan sugaynay London session-ku inuu furmo si uu real demand zone-ka u geeyo kaxeeyo markii real demand zone-ka tagtayna trade-kaygu active ayuu noqday oo trade-ka koobaad halkaas ayaan kasoo qaadanay. usbuucan maadaama uu ahaa usbuuc wareer badan doorashadii Mareykanka Donald Trump laga guuleystay oo khalkhal dhaqaale jiray 2 trade oo kaliya aan qaadanay. trade-kii kale aan qaadanay wuxuu ahaa Euro GBP actually iyada lafteedu correction ayay ku jirtay markii aanu analyze galeynay Euro GBP laakiin maxaan ogaa fib channel-kayga markaan ku sawirayay 3 jeer markay ku dhex laablaabato fib channel-kan inuu ka dhamaan doono trade nastigu amba correction-ku lacagtan ka dhamaan doono oo ay aadi doonto uptrend-kaas demand zone-kiisa markay ku soo laabatay aan trade-ka sugaynay actually sidii bay samaysay correction-ka markii koobaad waa taa ku laabatay markii labaad mar saddexaadkii markii halkaa maraysay ayay ka dhamaatay correction-kii oo red wayna ka dhex baxday fib channel-keenii oo halkay tagtay real demand zone-kii bay toos u tagtay. real demand zone-keenii markay tagtay ayaa trade-ka koobaad halkaas naga siisay lacagtan Euro GBP trade-ka koobaad halkaas naga siisay kor baan u raacnay inta bib aan ka helnay haddii aan cabiro inta bib aan ka helnay 134 bib ayuu TB2 iyagu noogu dhacay 140 bib actually labada lacag ayagoo kaliya ayaan anu setup-kooda ka shaqsi ahaan soo diray oo aan fikireeyay oo active noqonayo ii waafaqsanaa dhammaan shuruucahaygii. waxaan idin rajeynayaa faraxsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. taxliilimahayga analysis-kayga iyo ciddii u baahan dhammaan system-kaan u trade garayo dhan description-ka YouTube channel-kayga waxa yaala Telegram-ka channel-kayga kaas ayaan ku diraa usbuuclahayga analyse-ka usbuuclahayga iyo sidoo kale marka ay active noqdaan trade-aduba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idin rajeynayaa inaad faraxsantiin.